salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. warwada khaliifo aada idin salaamaysa. maanta waxaa inoo wadaa sambuus iyo mandhaasigaan ku bilaabeynaa. waxa meesha igu jiro waa ukuntii, sonkor baan ku daray, waa ku walaaqayaa. caano yar baa ku dhibanayaa. waxaan ku qasayaa caano. if you don't like caanaha, biyo cad waa ku qasan kartaa, laakiin anigu caanaan jeclahay inaan ku qasto. waxaan ku darayaa liibito, hal qaado liibita ama feexiso sidaa u taqaanid. waxaan kaloo ku darayaa cusbo yar oo qaata hafkeeda. koobkaas yarkaa waxaa igu jirta cusbo yar. marka waxa dhan ba isku walaaqaya, si fiican isku qasaya. waxaa hadda kusoo daraya waa burkii aan ka sameyn lahaa mandhaasiga. marka markaan xoogaa dareemo inuu maaragtay jilaac yahabo, bur yar baa ku dhibcinaya. adiga intaas unba ku qasaa, si fiican isku qabadsiinaa. saliid yar baa ku dhibcinaya. dadka qaar ba badhar ku darsadaan, qaar subag ku darsadaan, qaar waxbay ku darsadaan, laakiin anigu hadda wax kale xoo kuma daraayo. saliid yar oo waxaan ku dhibcinayaa suusan iskaga keeqa qabsan aan waxba ahayn. marka wax kale kuma daraayo. gacanteydaa la gelayaa, qaadada way waa iskula qabadsiiyey. soo gacanta ku xashayaa ama ku rafaaqayaa ama ku cajiimaya. af soomaaligii baa boqol lahjadooda. still burkii aan ku dhibcinaa markaan dareemo inuu yara iga jilicsan yahay. bur yar baan maaragta korka kaga daraya. khiyaaray marka saasaan kusoo dhameynayaa. si fiican markuu isku soo dhex galo ayaan idinla wadaagi doonaa insha allah, laakiin hadda saasaa kusoo dhameynayaa. waa kanaa saasaa kusoo dhameeyey. saasuu u jilicsan yahay, maasha allah tabaaraka raxmaan. saliiddaas yartaa baan saas ugu dhibcinayaa. baaquligana saliid yar baan mariyey siduusan baaquliga iiga dhegin. marka waa kuusayaa andaan baaquliga ku ridaya. aluminkaasaan ku duubanaynaa. aluminka waxaa isku daydaa si fiican inaa ugu duubtid, waayo si fiican kuguma soo fuurayo. so 30 minute baan meel dhigaynaa. after 30 minute baan isku soo laabanaynaa. haddana waxaan qasanaynaa sambuuska burkiisii oo markaas sambuuska aan ku sameyn lahayn. waa kanaa khiyaara isku soo laabanay. waxaan haysta waa bur. koobka yarkaa waxaa igu jiro waa cusbo. burkaas iyo cusbadaas bas baan maaragta ka qasayaa sambuuska burkiisa. cusbadii aan ku daray, biyo ku qasayaa. dad ukun ku darsanaya waa arkayay, dad caana ku qasaya waa arkayay, ama way jiraan. so aniga waxaan ku qasanayaa insha allahu tacaala biyahaas bas iyo cusbadaas yarkaa.
biyaha gacanta in yar baa ugu dhibicsanaya waayo ma rabo inay iga butaacaan oo maaragtay burka iga biyoobo. marka waa ujeedaan sida isku qabsaday wax yar oo aan waxba ahayn baa u dhiman. marka waxa waaye waan si fiican baan usoo qasayaa, usoo xashayaa ama usoo rafaaqaya insha allahu tacaala. markaan soo rafaaqo oo soo kuskuusanaya insha allah 6 xabo waan kasoo dhigayaa, 3 xabo iyo 3 xabo aan soo kor saari doonaa insha allah waa arki doontaan. laakiin hadda waxa waaye kaamirada way nagu dheeraanaysaa. waa soo xashayaa, waa soo kuskuusanaya insha allah. haddana meel baa iskaga duubaya oo aluminum baan iskaga xirayaa. marka waxaan bilaabaynaa inaan diyaarsano wixii maaragtay sambuuska aan ku sameyn lahayn, hilibkii iyo qudradii basashii aan dhex gelin lahayn insha allahu tacaala. kheyri wax dabka noo saaran waa hilib shishiid, waxba kuma darin. markaan karinaya cusbo yar oo beenbeena ku daray, waa soo jajabiyey maasha allah, freezer buu ahaa. soo hadda waxa waaye saliid yar oo beenbeena ku dhibcinaya, qudradiina waa ku dirayaa. marka waa kaa saliid yar oo beenbeena ku dara, saliidii kaaga badan ama biyaha markaad qalajinayso si fiican u qalaji, waayo hilibka hadduu kaa leeyahay qoyaan ama dhadhacaan uu kaa halaabaya. halkaas waxaa iigu muuqdo waa filfil, halkaas waxaa idinka muuqdo waa filfil, maraq digaag iyo xawaajiyaal isku soo daray, basal iyo barbarooniyaal kala nooca. marka first waxaan ku darayaa maraq digaaga, filfisha iyo xawaajiyaalka. filfisha waa soo tumay, filfil shiidan ma ahan, ma soo shiidin, laakiin mooyaha kusoo garaacay. filfisha caadiga organiga markaad ma aragtay tuntid bay ka fiicantahay, marka iyadoo shiidan soo gadid markaad tuntid bay ka caraf badan tahay. haddana basashii iyo barbarooniyaashii kala nooc aha baan kusoo darayaa. bas waxaan kusoo darsanaynaa basashii kale oo aan jarjartay. basasha inay iga bislaato ma rabo, waayo hilibka kuleelkiisa unbaa ku filan. marka basashaas kale baan korka kaga darayaa. hal mar baan qaadada saa isku dhex marinaya, kadibna dabkaan ka diminayaa.
dad waxaa jira markay dabka ka damiyaan already ku dara, laakiin anigu kuma daro waayo basasha markaad maanta dhan sooman tahay oo basal qeyriin aad cuntay afkaagana way kasoo ureysaa, hadhowtana waa soo dacsanaysaa. marka xoogaa yar baan dabka u daayaa, bahalka kulula waa ku shubaa. marka intaas baa iyada ku filan oo qeyriinka intaasuu kaga ba-aya. daadseed hadda waa ka damiyey. kuleelka hilibka ayay inta kalena ma aragtay uu dhadhanka ama qeyrinnimadu kaga ba-ayaa. hadda waxaan fidinaynaa burkii oo soo kuskuustay 6 xab buu ahaa, 3 xab baa idin tusinaya insha allah. 3 kalena gadaal baan kasoo sameynaya waayo kaamirada ugu dheeraanaysa. burka afkiisa waa inuu iskula kaasimadaa, waayo hadduu kaa kala dheeraado bahalka kaa halaabaya. sometimes way dhacdaa inuu kala dheeraado. marka waxaa la sameeyaa marka ugu dambeysa oo aad maaragtay dhameysid baad mindi geeska hareeraha ugu wareejinaysaa si uu kugu simado. marka saasaa la sameeyaa. markaas inta yarta hoo dhadheer ama aadba ooga shakidid inay kala dhadheer tahay baa mindisaa ugu soo wareejinaysaa. markaas waa goynaysaa. haddaad bur kala haysatidna burkaas intaad ku dirtaa xabad kale ka sameyn kartaa. haddaad bur kala haysana waxaad sameyn kartaa kaligiisba intaad fidisid intaa yarta aa goysid baad dubi kartaa, waayo jabaati u noqon karaa, wax walbaa lagu cuni karaa. marka aniga always ma tuuro. intaas hadda aa gooyay aa ujeedaan ma tuuro. dabkaan soo saarayaa. marka hadda intaan waxaa nooga soo baxaysaa 12 xabo. 3 kaloo aan haystan 12 xabo. marka 24 buu markaasayta noo noqonaya xabo. markaas dabkaa soo saaray, waa kasoo dejiyay. labadana saaranaya dabkana waa u gaabina waayo intaan labadan fufujinayo inuu maaragtay iga gubto ma rabo. marka labadana idin la wadaagaya, intaan idin la wadaagaya. kuleelka ma laga hadli karo.
marka kaasaa saas u jilicsan yahay. sambuuska waxaa fiican always inuu kuu jilicsanaado, waayo hadduu ka adkaado xirowgiisaa ku dhibaaya. marka in dhanka kale labada dhanba saas layska arki karo waayo jilicis uu zaa-id yahay. sorry ina arkaysaan umaleynaa kor u qaada, marka kor u qaado kaamirada ka durkaya. so khayr saasaa kusoo dhameynaya kulligiis. markaan soo dhameeyo oo aan ku guraayo insha allah waad arki doontaan khudradda ku dhex guraya iyo hilibka waa idinla wadaaga insha allah. waatana fooliyadii waa soo dhameeyey kulligeed saas qurux badan bay kusoo baxday maasha allah tabaaraka allah. halkaas waa burkii aan ku qasan lahaa waxa baaquliga igu jira, waxaasna waa hilibkii iyo qudraddii aan soo diyaarsanay. meeshaas ugu horeysa hadday maaragta halkaas haddii ayadan si fiican u xirin saliid baa kaa galaysa, sambuuskuna saasuu kaaga halaabaya. marka waxaa isku daydaan inaad geesaha meelaha yararka burka si fiican aad sambuuska uga xirtaan. hadday halkaas kaa furantay waxa waaye sambuuska dhan saliida kaa dhex galaysa. yaa meelahaas oo dhan saddexdaas meelood ee saddex geesaha iskaga imaadaan waa important. بس أخيار حبضنا أنا قدام بيسا هلي إلا بينا إنسان ربي marka kulligii sidaasaan kusoo dhameynayaa. marka kulligii soo dhameeyo insha allah tacaala. iyo mandhaasiga dee isaga waxba laguma gurayo, sida loo jarjarayo un bis baa idin la wadaagayaa. marka sambuuska saasaan kusoo dhameynayaa insha allahu tacaala. mandhaasiga hore waa usoo qasay, markaan qasaya waa aragteen sida u jarjarayo bis ba hadda noo hartay insha allah. dee dubowgana qof walba wuu yaqaanaa, sambuuskana afartaas baan ka sameeyey. khayr waa kan sambuuskeyna waa soo dhameysanay. saasar bahalkii halkaas buu noogu jiraa. wakaasaa mandhaasigeenina wakaasaa afartaa xabaan rabaa inaan hada dubo oo idinkana idinla wadaago. intii kalena bacdaas baan geliyey ayaad idin tusaayay. faranjeerkaa gelinaya anytime baad soo baxsan kartaa oo duman kartaa
sambuuskana sidoo kale isagana anytime baa duwan kartaa. aniga bisha dhan oo rabadaanka ah waxaan dubaa sambuuska 3 jeer ama 4 jeer, waayo hal week ama 2 week baa isku kariyaa. marka mandhaasiga saasa u fidinaysaa, saas u kala goynaysaa. haddaa xoog u fidisid like jabaatiga oo kale xoog u wanaajisid wuxuu kaa noqonaa wax qalalan. marka mandhaasiga xoogaa inuu hilib xoogaa yar butuc yahaa fiican, hadhowtadii si waxa jilicsan u noqdo uusan kaaga qalalin. marka mandhaasigana intaasaan idinka tusinayaa. dad badan oo jikada ku rafaadsan baa jira bisha rabadaan. waxaan kula talin lahaa sambuuska iyo mandhaasiga inay xal u helaan oo ay hal mar isku samaystaan, ama bishii 3 jeer ama 4 jeer. sambuuska bisha dhan xitaa isku samaysan kartaa, laakiin mandhaasiga 2 beri 3 beri ka badan anigu ma jecel inuu yaalo. marka waa kaasaa mandhaasigina intaasaan idinka tusayaa insha allah. dubowga qof walba wuu yaqaanaa, inta saliid lagu dhex rido dee in markuu brown noqdo ama guduud uu noqdo laga soo dejiyo. oo taa hadda waxaa idin baraya ma ahan, laakiin sidaasaan anigu u samaystaa. idinkana waxaan rajeynayaa inaad aniga iga faa'iideen, anna aan wax badan idinka faa'iidi doono insha allahu tacaala. wakana akhyaaray markaan soo dhameeyey mandhaasigii wakaasaa, sambuuskina wakaasaa. waa ujeedaan sambuuska xoogaa hadda ka duwanaya, inta kalena waxaa bacaha zib loogan ku xirayaa, funjeerkan gelinayaa. bacda hadda idin tusayana mandhaasigii waa ku jira 2-3 days mandhaasiga isku qasan kartaa. sambuuskana 2-3 week bil baa isku qasan kartaa. marka rabadaanka jikada waa ku daalee xal ha loo helo mandhaasiga. waxaan ka wadaa sambuuska. mandhaasiga waa very easy, bahalkaas 3 geesle aad buu u dhib badan yahay. wakana akhyaaray waa soo dubay. qof walba uu yaqaanaa si mandhaasi iyo sambuus loo dubo. dabka unbaad saaraysaa, markuu brown kuu noqdo guduud kuu noqdona waa ka dejinaysaa. anigu guduudka saasaan jecel, laakiin dadka qaar waxoogaa isagoo brown jecel. sambuuskiina iyo mandhaasigeeni halkaas buu noogu dhamaaday. aad iyo aad baan idiin salaamaya. haddaad ka heshay subscribe ii saar.